habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay daadad ka dhashay roobab mahiigaana oo ka da'ay magaalada Hargeysa iyo hareeraheeda warbixin ayaanu idinkaga haynaa sida xaaladdu iminka ay tahay qodobada kale caawana waxa ka mid ah wada hadallo cusub ayaa la qorsheynayaa in lagu soo afjaro dagaalka Yemen 4 sano kadibna waxa uu sababay dagaalkaasi kala bar dadka Yemen in ay kaalmo u baahdaan ardayda magaalada Muqdisho ayaa ka carooday go'aankii dawladda Soomaaliya ay ku baabiisay imtixaanadii dugsiyada sare ee sanadkan waxaanu baaritaan ku samaynay dunida shabakada 5G oo ah tiknoolajiyada cusub ee internetka ee mobilka oo noloshana wax weyn oo aanan filayn ku soo kordhin doonta kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa BBC London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa roobab mahiigaana oo ka da'ay magaalada Hargeysa shalay gabaldhici ilaa xalay fiidkii ayaa sababay dhimashada ilaa 6 qof dad inta ka badan ayaa waxa badbaadiyay ciidamada gurmadka roobkan ayaa guryo badan waxa uu ka qaaday jiingadihii ama saqafyadii kore wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Sadiq Maxamed Burmad ayaa goordho warbixintan nooga soo diray gurigan xalay looma hoyan daadka ku soo rogmadayna meel kale oo uu maro ayuu waayay waayo laagtii uu mari jiray dad ayaa dhistay guri iyo hanti iyo duunya way ku daysay ilaa dukaankayga yar dibadda ku yeelana ahaade hantidii way ku daysay duunyadii uu ilaahay dirqiya Allah kaga saar isaga awood leh weyninimadiisa ubadka kaga saar iyo hooyadoodii aabooriyadeerkood iyo laba inanoo ilmaadeeriyiin afurayay oo afurkiiba markaa la dhigdhigayay aqaday isagoo jabiye darbiyadii watay oodii uu soo galiyay guriga waad aragtaan halkuu joogo inamadii mid shoog buu qaado ma buu soo kicinba bartigu ayuu isoo hadal ku daayay mid kaliya laba inaan baa dhaqdhaqaaqayo halka markay biyo u mareen ayay ashahaadun qabsadeen cid ma heleen carruurta kuraasada dulbaxeen guryo badan ayuu saqafkii sare ka qaaday waxaana ciidanka dibdamisku ay badbaadiyeen dad ku dhow 30 qof oo halis ugu jiray inay qarqoomaan badi guryaha uu burburku soo gaadhay sababta keentay burburkoodu waxa weeye daadadkii ama laagihii garab marayay oo xidhmay marka dhinac walba lagaga soo guuray ee laga dhistay tusaale ahaan halkan imaka ay cagaftu qodayso waa laag waxay ka dumisay deer dhinaca kalena deer baa kaga soo durkay waana sababta uu daadkii halka ka soo bixi lahaa uu uga wareegay dhinaca kale ee uu jiray guryo badan oo uu baabiyay xalay xukuumaddu waxa ay sheegtay inay dhimashadu 5 qof tahay laakiin intaa way ka badan tahay ilaa imika 6 qof oo roobabkii habeen hore ku dhintay ayaan warkooda helay laakiin khasaaruhu intaa kuma eka ilaa caawa halistu way taagan tahay bulaacadii markii hore bay taaliyara ay biyihii imika sii nugleeyeen guryahan had yeeshee la dhisay bulaacada dibadda loo saarayo dad iyo farban ba ku dhacay geel farban ku dhacay baabuur farban ba ku dhacday marka dadweyne waxaan leeyahay iyo cid ku shaqale waa in bulaacada dibadda laga daay gudaha laga sameystaa haddii dibadda laga sameysanayna in sabad fiicanta loo sameeyo calaamadana la sameeyaa markasta oo roobab waaweyne ay da'aan tan oo kale ayaa dhacda maalin iyo laba ayaa cidda ka mas'uulka ahi ay dhaqdhaqaaq samaysaa waase laga hadhaa iyada oo qorshe cadaan laga yeelan roobabka dambe Sadiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa bal markana aynu eegno shirkadda WhatsApp ayaa loo dhacay oo la jabsaday waxaana arintani ay u ogolaanaysaa in hadda kadib la dhageysan karo telefoonada shirkadaasi amaba applicationkan barnaamij waxyeello u geysanaya ayaana lagu arkay horaantii bishan dhamaadkii toddobaadkii tagayna waxa la sheegay in la hagaajiyay dhibaatadaasi shirkadda ayaa hadda waxa ay kula talinaysaa macaamiisheeda oo gaaraya 1.5 bilyan oo qof in ay markaasi cusboonaysiiyaan applicationka ay ka isticmaalaan WhatsApp-ka shirkadda oo Facebook ay leedahay ayaa waxa ay sheegtay in dad gaar ah la weeraray oo ay ku jiraan qareenno xuquuqda aadanaha u dooda haddaba
yaa ka dambeeya arrintan shirkadda gaarka ah ee ay wargeyska Financial Times uu ku soo warramay waxa uu fadhigeedu yahay waddanka Israa'iil waxaana lagu magacaabaa NSO Group waxa la aasaasay 2010 waxaana ay caan ku tahay barnaamij la yiraahdo Pegasus kaasi oo damin kara kamarada iyo waliba mikrofoonada telefoonka iyadoo xogtana uu dhaadhici karo wariyaha BBC-da ee dhinaca tiknoolajiyadda Dave Lee ayaa ka warramaya Human rights organizations say this is the attack they had always ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in tani tahay weerar ay ka baqayeen oo suuragal ah cillad ka dhigan in kuwa weerarka soo qaaday ay gelin karaan barnaamij waxbasaasa iyadoo aadan waxba samaynayn qoraal ka soo baxay kooxda NSO ayaa lagu sheegay in uu dalka ka caawinayo la dagaalanka dambiyada iyo argagixisada shirkaddu waxay sheegtay inaysan qayb ka qaadan cidda loogu talagalay balse toddobaadkan kooxo ay hogaaminayso Amnesty International ayaa ugu baaqay militariga Israa'iil inay kala noqdaan NSO shatiga ay dibadda wax uga iibiyaan bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay isku horimaad dhex maray dad banaanbaxayay iyo ciidamada amniga ee Suudaan xalay magaalada Khartoum waxaa laga maqlayay rasaas ka dhacaysay goob dadku ay ku banaanbaxayeen oo ay ku dalbanayeen in xukunka lagu wareejiyo dawlad rayid ah waxa hoos u dhac ku yimid saamiyada suuqyada Asia iyadoo uu sii xoogaystay dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya labada wadan ee Mareykanka iyo Shiinaha shalay Shiinuhu waxa uu ku dhawaaqay canshuur gaaraysa $60 bilyan oo la saarayo alaabta Mareykanka taasi oo keentay in hoos ay u dhacaan qiimaha saamiyada Mareykanka maantana saamiyada Nikkei iyo Tokyo iyo Hang Seng Hong Kong ayaa hoos u dhacay bilowgii ganacsiga baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dawladaha in ay ka gooyaan dhammaan taageerada xagga dhaqaalaha ee ay siiyaan militariga waddanka Myanmar taasi oo looga jawaabayo waxa ay ugu yeereen ficilada xasuuqa ay u geysteen waddankaasi dadka ku dhaqaneen Rohingya guddi xaqiiqo raadis oo madax bannaan oo qaramada midoobay ayaa sheegay in taliyaasha ciidanka la godoomiyo isla markaana la soo taago maxkamad wadahadallo cusub ayaa soconayo oo lagu doonayo in xal looga gaaro khilaafka waddanka Yemen waxa markaasi waddankaasi uu la daaladhacay dagaalo sokeeye oo ka socday muddo 4 sano oo ay ku hardamayeen kooxaha mucaaradka ee Xuutiyiinta oo ay Iiraan taageerto iyo dawladda Yemen oo Sacuudigu ay taageeraan Yemen ayaa waxay wajahaysaa dhibaatadii bini'aadanimo ee ugu xumayd iyadoo malaayiin dad gaaraya ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah iyo waliba raashin magaalada Ticis oo kaliya hal isbitaal ayaa wali ka shaqeynaya xaaladda iyo wararkii ugu dambeeyay waxa inoo haysa Aisha Afrax digniin sawirro naxdin ayaa ku jira warbixintan waa dhibano kale oo la toogtay isbitaalka Ticis ayaa loola sii cararayaa dagaalkan Yemen ayaa si ba'an u saameeyay magaalada Ticis iyadoo xaaladuna ay ka sii darayso tan iyo 10 barkii subaxnimo waxaa socday rasaas aan kala go' lahayn dhaawacyo ayaa naloo keenay magaaladu way burburtay dadkana khatar ayay ku sugan yihiin cidna kama warhayso Cabdiraxiin ayaana tusinaya sida ay u adag tahay in la socsocdo halkan waa dhufays maxaa yeelay jidka uu iska furnaa shiish ayaana saaraa waa inaad gambataa oo aad orodaa magaaladan labadeeda dhinacba waa jiid dagaal dhanna Xuutiyiinta ayuu shiish u saaran yahay dhanka kalena ciidamada dawladda Yemen taabacsan ayaa haysta dadka halkan ku haray ayaysan u fududeen inay ka baxsadaan ma ogtahay qof baa halkan lagu toogtay isbitaalka ayay u qaadeen halkan ayaana lagu toogtay in yar kadib waxaan aragnay dhibano kale kaalay aragkani wuxuu ka mid yahay bukaanada gurigayga ayaan eegayay kadibna qof baa i toogtay Raabica waa 11 jir waxaa dhabarka laga toogtay iyadoo aabaheed caawinaysa bannaanka anigoo fiirinaya ayaan arkay iyadoo dhiig badan uu afkeeda iyo sankeeda ka soo qulqulayo waxaan ku ducaystay ilaahayow ii badbaadi balse haddii ay adiga kuu soo laaban lahaydna u fududee Raabica hooyadeed ayaana tusay xabadda ay ka soo bixiyeen dhakhaatiirtu dhabarkeeda xataa isbitaalka weyn ee Ticis ma ahan goob nabad ah
wuxuu ahaan jiray qol qalliin oo weyn waa laga tegey qalliino nafta lagu badbaadinaya ayaa ka dhici jiray halkan balse hadda gebi ahaanba way burburtay jiidda hore ayaad halkan ka arki kartaa waa khatar laakiin waa inaan adeegga sii wadnaa haba yaraadee maxaa yeelay dadku si ba'an ayay ugu baahan yihiin maalin kasta tirada dhimashadu way sii kordhaysaa xamdaan ayaa sidoo kale la shaqaynayay walaalkii marka ay xuutiyiintu toogteen annagoon filayn ayaa xuutiyiintuna soo weerareen isaga ayay xabad ku bilaabeen fulayaasha dagaalkooda annaga shaqo kumaanaan lahayn inkastoo ay jiraan wadahadal nabadeed dagaalku wuu sii soconayaa dadweynaha tacis ayaana rajadoodu aysan wanaagsanayn mahadsanid caaisha afrax oo soo jeedinaysay warbixintaasi ku saabsan xaaladda waddanka yeman oo kadib 4 sano oo dagaalo ay ka socdeen waddankaasi la doonaya in inka markaasi wadahadallo dib loogu yegleelayo nabadda waddankaasi la galo mar walba waxaad nagala socon kartaan oo aad naga daawan kartaan boggayaga BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo kala duwan falanqayn dheeraad ah iyo waliba wararka ugu waaweyn ee gobolka iyo caalamka si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkaba nagala soco boggayaga BBC Somali Twitter BBC Somali Instagram iyo waliba YouTube-ka oo aad ka heli karto muuqaaladii ugu dambeeyay ee barnaamijka caawiya caalamka wali waxaan noo soo socdaa oo qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan ardayda magaalada Muqdisho oo maanta banaanbax dhigay oo waliba ka carooday go'aankii dawladda Soomaaliya ay ku baabiisay imtixaanadii dugsiyada sare ee sanadkan goorna waxaan la hadli doonaa wasiirkii hore ee waxbarashada ee Soomaaliya wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale balaan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn caawa ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay daadad ka dhashay robab mahiigaan ah oo ka daay magaalada Hargeysa iyo hareeraheeda wadahadallo cusub ayaa la qorsheynayaa in lagu soo afjaro dagaalka Yemen 4 sano kadib waddankaasi waxa uu dagaalku sababay kala bar dadkiisu in ay kaalmo u baahdaan bal markana qaar ka mid ah ardayda dugsiyada magaalada Muqdisho ayaa maanta mudaharaad dhigay kadib markii wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya uu joojiyay imtixaanadii waddanka oo dhan ee dugsiyada sare sabab la xiriira waraaqihii imtixaanaadka oo la xaday waxaana ardaydu ay markaasi imtixaanada u fariisteen oo ay bilaabeen sabtidii aynu ka soo gudbnay iyagoo ilaa 6 maadana imtixaanaadkooda la qaaday oo markaasi ay mareen si kastaba ahaatee xukuumadda ayaa sheegtay in qaar ka mid ah waraaqaha imtixaanka lagu baahiyay baraha bulshada qaarna la iibinayayba wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya haddaba Cabdulaahi Goodax Barre oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yiri waxay ahayd nasiib darro in imtixaanaadkii ummadda Soomaaliyeed lagu qiimeynayay uu qof hunguri ka raadiyo waliba bil Ramadaan sidoo kale waa uu sii hadlay oo waxa uu sheegay in nasiib darro ay tahay in waalidiintii qaarkood ay ka qayb galeen buu yiri iibintii imtixaanaadkaasi waxay dawladdu sheegtay haddaba in dib loo bilaabi doono imtixaanaadka 27 bishan aynu ku jirno ee May iyadoo muddada ay imtixaanadu socdaan dalka laga joojin doono warbaahinta bulshada oo dhan micnaheedu waxa weeye internetka oo dhan go'aankan ayaa ka careysiyay qaar ka mid ah ardayda hadalladadoodiina waxaa ka mid ahaa imtixaankii la bixiyay oo magaalada la dhex dhigay ardayda Soomaaliyeed oo juhud soo gelisay loo ciqaabo nasiib darrada taagan sida maaraynta loo maamuray ka mid ah saddex habeen taraawiixda waxa u dhaafnay imtixaanka dartiis taraawiixda imtixaanka waa ku taraawiix sagnay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa iyana go'aan ay goor dhaweyd soo saartay waxa ay ku sheegtay in go'aanka dawladda ee baraha bulshada ay ku joojin doonto uu yahay mid aan loo meeldayin qoraalkaasi ay soo saartay Amnesty waxa ay ku sheegtay in laga xumaado in wax laga xumaado ay tahay in xukuumadda Soomaaliya ay xiri doonto xiriirkii warbaahinta ee bulshada ee dalka oo dhan kadib markii ay ku fashilantay bay tiri waajibaadkeedii ku aadanaa in la sugo xogta waraaqaha imtixaanka haddaba waxaa magaalada Nairobi khadka stuudiyaha ee BBC-da ku jira wasiirkii hore ee waxbarashada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan wasiir soo dhawow go'aankan ma la yaabtay
aad u mahadsantahay farxaan maya lama yaabin go-aanka marka sidaad u aragtaa muxuu kula muuqdaa go-aankii saxda ah dee horta go-aan uu wasiir qaatay waa go-aan dabcan waxaan qiyaasayaa inuu ku salaysan yahay kow dastuurka 2 shuruucda dalku yaala 3 in wada tashi uu soo maray marka go-aanka saxnimadiisa iyo khaladnimadiisa ma aha laakiin go-aanka haddii mar uu ka yimid wasiirka marka waa in waxyaabahaas hadda aan sheegay uu salka ku hayaa isla markaasna waa inuusan haddana uusan xaaladda uga sii daraynin inuu keenayo wax wixii sii hagaajinaya laakiin aan ka sii daraynin inuu saas yahay kaasaa ma arkaysaa loo baahan yahay go-aanka anna waxaan rajaynayaa go-aankan kolba inuu waxyaabahaas la marsi ay tahay in la marsiiyo taasaan qiyaasaya waan gartay Amnesty International oo goordhow warbixin ka soo saartay hadalka waxay tiri waa arrin aad loola yaabo in waliba waxay leedahay dawladdu waxay inay qaab kale ay hesho oo ay ku ilaaliso xogta imtixaanaadka laakiin in wadankii la yiraahdo 5 maalmood ayaa wixii oo dhan la xirayaa adigu maxaad ku fasiri lahayd wasiir baad ahaan jirtay horto Amnesty International ma u maleynay inay og tahay xaaladda hoose ee dalka ka jirto wadan iska daciifa afrikaan ah oo ma arkaysa arintan qishka imtixaanaadkana uu aad u baahsan yahay iska noqotay wax caadi ah marka horta in lala harjado waa khasab qaabka lagu joojinayo in shutdown laga dhigo dalkoo idil waa arrin kale laakiin waxay la tahay dalalka qaarkood yani maxaad ugala jeedaa waa arrin kale markaad leedahay way sameeyaan waa arrin kale markaad leedahay macnaha waa khalad baad leedahay maada khalad iyo sax waxay tahay labadaba ma sheegin laakiin in horto internetka laga joojiyo si loola dagaalo taas ma aha tan ugu horeyso oo priority taas ma ka dhigi lahayn anigu waa in waxyaabo kaleento waa in meesha yimaadaan taasaan qiyaasi lahaa maxaad is leedahay marka way ahayd in ay qabato dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada de horta waxaa waaye arrintan imtixaanka waa aan ogaano waa arrin horta dastuuri ah ardaydana xaqi u leeyihiin in ma arkaysa waxbarashadooda la qiimeeyaa la diiwaangeliyaa la keydiyaa oo natiijadan loo sheegaa wasaaraddana waajib ayay ku tahay in ma arkaysa arrintaas ay marsiiso marka laakiin waxaa la rabaa sida ugu wanaagsan wasaaraddan ay u tabaabushaysato oo waxaa loo sii kuurgarayn lahaa si ardayda natiijadooda oo sax ah oo tii u qalantay ay timaado imtixaanka iyo in la qisho oo dalkeenna aad ugu badan yahay aniga waxay la tahay qaabka loo xalinayo kaliya ma aha in xoog laga dhigo oo system iyo waxyaabo saas la adeegsado waa arrin ma arkaysa aad u dheer oo wacyigelin dheer u baahan oo loo baahan yahay dadka in xagga manhajka lagala dhaqmo in dadku ay bartaan in ma arkaysa responsibility ama ma arkaysa mas-uuliyad oo shakhsiyan ah uu qofku uu qaato taas waa in heerkaas aan soo gaarsiino laakiin inta ka horeyso waa loo baahan yahay in ma arkaysa horta arrinta la xakameeyana waa muhiim haddii marka arrintii oo sida hadda ay u fashilantoo kale maxaa meesha ka imaanaya aniga waxay la tahay mar walba ardayda xaggooda ma aha khaladka ardayda waa ma arkaysa xaqi u leeyihiin waa xuquuqdooda in markasta la sameeya marka cidda ma arkaysa mar walba khaladka la raba inay qaadato oo mas-uuliyadda ay qaadato waa wasaaradda wasaaradana in ma arkaysa mas-uuliyadda marka waa inay qaadataa tiri adoo raalli ah cabdiraxmaan wasiirku waxa uu yiri runtii marna wuxuu eedeeyay waalidiintii marna wuxuu yiri lacag baan siinaynaa cidii soo sheegta ama abaalmarin ama lacagtii ay ku gateen baan dib ugu celinaynaa laakiin markaad isku soo duubta hadda dhalinta inta badan maanta mudaharaadaysay mid kamid wuxuu yiri 5 maalmood 4 maalmood habeen intaasaana salaad aanan aadin buu yiri oo aan ku dhafray marka in ha lagu celiyo la yiraahdo imtixaankii ma ku tahay cadaalad ardayda runta markaan ku sheego cadaalad horta kuma aha imtixaankii in lagu celiyo haddana waxaan cadaalad ahayn arday dadaalay oo ma arkaysaa sida hadda ardayga aad ka hadlaysid oo waxaa sameeyey iyo mid imtixaankii aan dadaalin oo qish helay inay isku mid noqdaan taasina waa khalad kale oo meesha yaallo marka aniga waxay la tahay in maxaan kuu sheegaa arinta siyaabo kale inta loo xalli kari lahaa iyadoo mid kale aan rabaa inaan wax kaa weydiiyo marka maadaama aad siyaasi tahay puntland horey u qaadacday in maaragtay nidaamka Soomaaliya federaalka waxbarashada ay la qabsato maantana madaxweynihii Hirshabeelle waxa uu sheegay wixii ka dambeeyay in ay iyagu maamuli doonaan waxbarashada gobolkooda
marka dowladdiina dhexana sidaas bay leedahay arrintii siyaasad baa loo bedelama is leedahay waxbarashada nidaamkii Soomaaliya horta dee cid walba iska hadasho oo hadal siyaasadeed ku hadasho ma dhihi karna hadalkaasi waa go'aan ma arkaysaa dastuurka ama shuruucda dalka waafaqsan mar walba Puntland iyo Hirshabeelle labadaba way ka tirsan yihiin dowladda federaalka ah khasab aynu ku tahay in ma arkaysaa dalkan isku meel u socdo hiigsiga ama aragtida fog oo dalka laga leeyahay xagga waxbarashada waa in la helaa manhaj waxbarasho oo ma arkaysaa keenaya wadajir bulsho markaan leenahayna waxa waaye wax dadka isku soo dhaweynayo taasina cid walba ama dowlad goboleed ha ahaado ama dowladda dhexe ha ahaato waxa la rabaa dhinaceeda inay ka riixdo marka Puntland hadalka ay sheegtay iyo Hirshabeelle kan sheegeen iyo qaar kale soo socda waxay sheegayaan haddii ay yihiin wax dastuurka ku yaalo dastuurka ku salaysan de waa okay laakiin haddii ay tahay wax ma arkaysaa iska siyaasadaysan ma ka hadli karno aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan waa mahadsantahay adaa mudan Farxaan bal markana haddii aynu eegno wararka ciyaaraha ee caawa baarayaasha UEFA ayaa waxay doonayaan in Manchester City laga mamnuuco horyaalka Yurub xilliga soo socda haddii lagu helo dambiya inay jabiyaan sharciyada ah in si xaq ah ciyaartooyga markaasi loo kala iibsado waa tahay bal markana aynu eegno khubarada dhinaca tiknoolajiyadda ayaa sheegay in shabakada mobilada ee 5G ay markaasi wax badan nolosha ka bedeli doonaan cabdisaaq shabakada soo socota ee mobiladu waxa ay noqonaysaa jiilkii shanaad waxa lagu magacaabay 5G aad ayay uga duwan tahay kuwii ka horeeyay 1G wuxuu ahaa taleefan ay laba qof uun ku wada hadli karaan 2G wuxuu ogolaanayaa in fariimo qoraal ah laysku diri karo 3G wuxuu keenay taleefanada casriga ah ee ogolaanaya in adduunka layskala hadli karo 4G oo aan haysanay ilaa iyo 2009kii ayaa sahlay in waxyaabaha kor aan ku soo sheegnay oo dhan ay degdeg u dhacaan 5G waa sidii adigoo adduunka ka tegay oo qabtay Mars kama degdeg badna uun waa caalam ka duwan midkan si heerka markaa loo gaadho waxaa loo baahan yahay anteenooyin aad u fara badan in meel walba la dhigo sababta oo ah balaayiin qalab cusub ayaa sugaya in laysku xidho mid waliba ta kale ayay xiriir la yeelan doontaa oo ay la shaqayn doontaa taasaa nolosheenna u sahli doontaa si aynaan weligaan filayn wuxuu kuu ogolaanayaa inaad keedin karta awoodda taleefankaaga casriga ah ee gurigaaga talaajada ayaa kuu sheegi karta waxa ka maqan kuuna dalbi karta in gurigaaga lagugu keeno makiinadda alaabta lagu dhaqo ayaa kuu sheegaysa marka loo baahan yahay in alaabta la dhaqo makiinadda dharka ayaa iyana kuu sheegaysa marka ay tahay in dharka la dhaqo hadda qalabka innaga ayaa amarka siina laakiin marka 5G yimaado toos ayuu ula xidhiirayaa makiinadahaasi 5G waxa uu noqon doonaa qalab xiriirkiisu aad iyo aad u dheereeyo laakiin waxa loo baahan yahay inay noqoto xiriir degan oo mid waliba ta kale ugu boodayso anteenadeeda laakiin degdegaas waa caynkee teknolojigan hadda ay tijaabinayaan Blue Wireless wuxuu awoodi doonaa in tareennada aad u dheereeya lagu xidho shabakadda 5G oo markaa degdeg loogu xidhmi karo internetka barnaamijkii caawaya caalamkana waa naga inta ee habeen wanaagsan